السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك على يوتيوب جنال كينج عقل فيلمز. ما أنت الكلام waxaan ku bari doonaa maxaad ku garanaysaa inaad qof agtiisa ku weyn tahay ama uu ku xiiseynaya ama uu ku daneynaya. Waxa laga yaabaa marar badan inaad is weydiisid su'aal ah qof noloshaada ku jira oo gaar ah ama ku doonaya ama ku xiiseynaya sidee aad ku garan kartaa. Waxa jiro dhaqamo badan oo ku sheegaya ama kaga jawaabaya qofka ku xiiseeya ama qofka ku doonaya. dhaqamadaas waxay ka kooban yihiin ilaa iyo 4 dhaqamood ayay ka kooban yihiin. marka qofka aad ku aragto ilaa iyo afartaas dhaqan waa qof ku daneynaya oo ku xiiseynaya oo ku doonaya. qodobka koowaad qofkaas wuxuu u hadlaa ama uu u dhaqmaa sida aad u hadashid, yacni wuu ku koobiyaa hadalladaada ayuu koobiyaa sida uu u hadashid ayuu u hadlaa. qodobka labaad wuxuu aad u dhageystaa sheekadaada si xiiso leh, yacni marnaba kaama caadisayo marnaba kaama mashquulayo. sheekadaada ayuu u dhaga nugul yahay oo markasto aad u dhageystaa, marnaba kaama mashquulayo xataa haday dhacdo in uu mashquulo marnaba kaama mashquulayo. qodobka saddexaad hadalladaada ayuu ku qoslaa iyadoonan jirin xitaa wax sheeka oo qosol ah oo ka sheekinin. hadalladaada ayuu ku qoslaa xitaa iyadoonan jirin sheeko qosol ah ayuu ku qoslaa. wuxuu isku dayaa inuu ku qoslo sheekadaada, yacni sheekadaada ayuu ku qoslaa mar walba iyadoonan jirin wax sheeko qosol ah u sheekinin xataa. qodobka afraad waa qodobka ugu dambeeyo, wuxuu uu kula hadlaa sidoona dadka kale ula hadlin ama wuxuu ku adeegsadaa kelmado aad u naxariis badan ayuu ku isticmaalaa mar walba. qofkaas waa hubaal qofka aad ku aragto afartaas qodob inuu ku daneynayo ama ku xiiseynayo. fadlan qofka YouTube channel-ka ku cusub fadlan subscribe dheh, share, like si aad ula socoto casharada aan soo geli doono insha Allah.